walaalayaal waxaan si khaas ah maanta ula hadlayaa addoomaha ilaahay gaar ahaan dumarka. addoontii allay ha noqonin addoon, ha u noqonin ibliiska, u noqo addoon ilaahay u noqo. waxaa jira gabdho badan oo marka kor laga arka aad is leedahay waa addoomo ilaahay, laakiin xaqiiqadii aanan ahayn oo ah addoomo ibliis. ibliiska dhaar waatuu ku maray, wallaahi ilaahay buu dhaar u marayaa, wallaahi waan amrayaa ilmaha aadam, waan amrayaa, waxaan yeelanayaa oo aan ku yeelanayaa addoomo aniga i caabuda oo ay abuurkaagii bedelaan, abuur kale aan u samaysto, kuwa aniga ii go-an ayaan yeelanayaa. ha ku fikirin buu leeyahay ibliiska, ilaahay buu ku leeyahay in ilmaha aadam oo dhan ay adiga addoomo ku noqdaan. wa qaala la attakhidana min cibaadika nasiiban mafruuda, qayb baan ku yeelanayaa buu leeyahy. waa kuwee addoommada ibliiska? min xadiidi ibni mascuud radia allahu canhu ardaah, waa ka uu dhahayo lacana allahu alwaashimaati walmustawshimaat walnaamisaati walmutanamisaat walmutafallijaati lilxusni almugayiraati khalq allah. waa dhowr ruuxa uu lacnadayo rasuulka iyo ilaahay ay lacnadayaan, islaamka uu lacnadayo. waa addoomaha ibliiska, addoomaha ilaahay lama lacnado. gabadha halkaa timaha halkaa ku yaala, timaha gabadha xiirta xaajibeynka, sunniyaha xiidha amaba yaryaraysa, tan samaysa iyo tan loo sameeyo, iyo kuwa mustawshimaadka oo isu yeela taatuuga, jirkooda wax ku sawiro bedela, ku raali ahaan waaye quruxda ilaahay jirkoodii u yeelay oo bedela, ama halkaa bar u yeela, ama sidii hindidii halkaa wax u samaysta, ama halkaa iska turqa. kuwa ilkaha feedhfeedha ibliisku u amree uu leeyahay war fanax isu yeel, ti ilaahay arki mayaan, qaybtii ilaahay sii arki mayaan oo ay ku ahaayeen addoomo alle. ibliiskii baa amraaya. saa ibliisku wax ma abuuri karaaya oo isaga awood ma laha uu insaan ku abuuro, laakiin wuxuu dhaar ku maray in uu abuurka ilaahay faragelinayo. gabadhii ilaahay maariin ka yeelay, gabadhii ilaahay ilkaheedii isku dhejiyey, gabadhii ilaahay sunniyaha u yeelay, gabadhii ilaahay jirkeedii qurxiyey, isaga wuxuu dhahayaa sidaa qurux maaha, wuu bedelayaa marka, wuuna amrayaa. war yaa amarka qaata? amarka waxa qaata qofka addoonka ah, qofka addoonsanaya ayuu amarka ka qaataa. addoomaha ilaahay, ilaahay bay amar ka qaataan. addoomaha ibliiska war waxaad naxariista ilaahay ku waayeysaa oo aad jannadii ku waayeysaa, naxariis adduunye mid aakhiro ku waayeysaa, islaamkaaga aad uga fogaanaysaa timahaasoo aad xiirtay keliya, ilkahoo aad feerfeertay. ilahay baan ku dhaariyay imisaa guryaheena gabdho malcuunaada ay ku jiraan oo weliba aanu arkayn horteena ay ku samaysanayaan. gabadha markay aroosaysa wixii oo dhan way bedelaysaa, bal midabkeedii bay bedelaysaa, bal waxay bedelay ilkaheedii, abuurka ilaahay bay bedelay, abuur ibliis bay raacay. say barako u doonaysaa gabadha iyada ah.